Jubbaland dowladda federaalka way ka gardaran tahay. Jubbaland waa dhisantay, waa jirtaa, constitution ay leedahay, shacab ay leedahay, waxba ay leedahay. qalad ma ka jiro, sax ma ka jiro, waa meel kale oo gooni ah, waa su'aal kale. laakiin jiritaanka state-ka ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama inay jirto oo sida dastuurku wuxuu dastuurku ogolaan doorashada inay is doortaan iyaga qaabayaan la ogolyahay. Arinta oo ku saabsan Jubbaland hadda waxaan su'aasheeda u dambeysay weydiisay, waxaan jawaabteeda ku jirtay qawaaniinta hal la ilaaliyo. dalkani maalina dad Soomaaliyeed intii isku yimaadeen ayaa waxay ku heshiiyeen dalku inuu federaal noqdo. heshiis loo dhan yahay waa ma aha federaal ma fiican yahay, federaal muxuu yahay ma aha. laakiin waa dada Soomaalid dad wakiilo ka ah ummadda Soomaaliyeed oo dhamma inta isku yimiday dadka maamaadi Soomaaliyeed oo gurigeed kuma soo dhamaato, dadka Soomaaliyeed hal meel isku ma iman karaan. laakiin dadka Soomaaliyeed wakiilada ka ah ayaa dastuurkaas ansixiyay oo nidaamka federaalka aqbalay. waa dhaqan gelinay, waa la bilaabay, waa la dhisay. nidaamkaasi wax uu wataa jirta, waa bilo, waa laga yaabaa inuu cilada leeyahay, inuu meel ka waxaysan yahay, laakiin waa la saxayaa, waa la toosinayaa, waa la korinayaa, wuxuu hagaagi doonaan. laakiin marka horeba haddii aan nabas ku dili tagno oo aan dhahno muxuu ahaay meeshii inuu ka dhaqaaqo nidaamkiiba koro haddaan diidno nidaam marka Jubbaland waxa ka dhacay waxay tahay waxyaabaha dawladda aan uga ra'yi duwanay ka mid tahay. Jubbaland waa dhisantay, waa jirtaa, constitution ay leedahay, shacab ay leedahay, waxba ay leedahay. qalad ma ka jiro, sax ma ka jiro, waa meel kale oo gooni ah, waa su'aal kale. laakiin jiritaanka state-ka ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama inay jirto oo sida dastuurku wuxuu dastuurku ogolaan doorashada inay is doortaan iyaga qaabayaan la ogolyahay. dawladdu marka waa labo inay qawaaniintii ku ilaaliso, qawaaniintii ayadoo dhowrto oo meeshaana qaanuunku ka qaldan yahay hal ilaaliyo ay tiraado. laakiin ayadoo aanay qaldin gacmo daahira wax daahiriyaa leeyahay. dawladdu haddii qawaaniintii ayadoo ay ku cayaarayso, ku tumanayso, barbar marayso, sidee dad kale u dhihi kartaa muxuu ahaaye jalamadu digsigay leedahay waa madow yahay diyo kala soo noqon mayso xigmadii ahayd. dawladdu qawaaniinta ayada ha ilaaliso, markaasaa laga dhageysanayaa qofka qaanuunka ku qaldamaya xataa inuu qaldan yahay. laakiin dawladdiyo ayadaba qaanuunka ku qaldan qof kala qaldan cid ka dhageysanaysa ma jirto. Jubbaland waxa ka dhacay ilaa maantana ka jiro oo cunaqabataynta iyo muxuu ku xadgudub meel ay ka qoran tahay qaanuunka Soomaaliya sheegay ma jirto. dawladdu inay gobollo gaar ah target garayso lama tii karo, lama yeeri karo, lama siin karo, looma ogolaan karo, la waxay karo inay tiraado ajaanib isticmaasho. annagu waxaan go'aan hore uga gaarnay mushkilad Soomaaliyeed inaanan ajnabi loo adeegsanin. annagaaba hadda dhibaatooyin duruufo u kalifeen yaanba qabnaa, laakiin duruufo aan ka maarmi karno iyo qadaayaad aan uga maarmi karno inaan ajnabi u adeegsan. dawladdu Jubbaland ajnabi u adeegsatay, barashar caalami u adeegsatay, cunaqabatayn muxuu ahaa cir iyo dhul iyo bad ay saartay, intay saartay. maxaa marka dawladdii sidee Jubbaland dawlad ugu tahay waa mas'alada. dawladdu ayadaa dawladdii qaranka ah, ayadaa dalka dhan dawlad u ah, inay dadka gacanta madaxa ka saarto, ilaaliso, dhowrto. xasaasiyaad badanaa jiro, booga badanaa jiro. dadku inaan maalin walba boog nooca la danqiyo sax ma ah. Jubbaland dowladda federaalka way ka gardaran tahay. waxa aan anagu qabnana waxay tahay gardaradaasna waxay asalkeedu ka soo jeedaa qawaaniinta ilaalinteeda ayuu ka soo jeedaa. reer hebel ma degaan hebel ma cali ma jaamac ma cali suu ma ilaalinta qawaaniinta waa meesha qaladku ka jiro. dowladdu waxa leenahay qawaaniinta ha ilaaliso.